xaaladda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa u muuqata mid dagaal kadib markii Saciid Cabdullaahi Deni oo ciidamo fara badan oo geeyay inta u dhaxaysa magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo. dhinaca kale ciidamada uu hogaamiyo General Jimcaale Jaamac Takar waa ciidamada qaybta 54aad ee ciidamada Danab ayaa war qoraal ay xalay soo saareen waxay ku sheegeen in markaasi Saciid Cabdullaahi Deni uu horanayo colaado markaasi ka dhaxaloolsan waa maamulka Puntland Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisada maamulka Puntland iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ismada dhaqanka gobolka Mudug oo kulamo ka wada magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale Mareykanka oo cadaadis ku hayo madaxda maamulka Puntland ugu horeeyay Saciid Cabdullaahi Deni waxay ka dalbanayaan in markaasi uu yimaado magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo mar kale dib loo bilaabi doono wada hadaladii u dhaxeeyay xubnaha siyaasiyiinta iyo mucaaradka. dhinaca kale caawa 1 PM waxa la qorsheynayaa ama 7 fiidnimo in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay shir jaraa'id ku qabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay ayaa muuqaalkan ku soo koobaya soo dhawaada saaxiibayaal. waa maalinimo markaasi Arbacada taariikhdu ku aasiisan tahay waa markaasi 29ka bisha 7 ee Julaay sanadda 2020. maalin wanaagsan ayaan hawdeeda ka leenahay. magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa markaasi ismada dhaqanka ay ka wadaan kulamo markaasi xal loogu raadinayo xiisad colaadeed oo ka taagan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. ciidamada BSF ee markaasi dhawaan la dagaalamay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Gaalkacyo qaybta ay Galmudug ee maamusho waxaana halkaasi ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan ee wado dawladda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ciidamo fara badan waxa uu geeyay magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland maamusho ilaa wadada xiriirisa magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal ahna xarunta maamulka Puntland Soomaaliya ku meel gaarka. Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu markaasi ciidamadan uu ku amray ama ciidamo in ka badan 2,000 ayaa waxa la geeyay agagaasi iyadoo markaasi looga dalnayahay inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada ee wadada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayso inay markaasi ay ciidamo fara badan ay geyso maamulka Puntland Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa xuduudda ay la wadaagto maamulka Galmudug oo markaasi iyadoo la filayo inay birita ay ka qabsanto doorashada qof iyo codka. halkaasina waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan. Puntland iyadoo waxay soo saartay go'aan ay ku mamnuucayso duulimaadyada hawada iyo sidoo kale dhanka waa markaasi lugta ama gaadiidka. wasaaradda gaadiidka Puntland ama markaasi Galmudug oo dhawaan hadlaysay war qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in markaasi laga bilaabo 1 habeenimo ee caawa oo ah markaasi 30ka Luulyo ama bisha 7 ee Julaay laga bilaabo ayna wax diyaarada ay markaasi ka digi kareen garoomada diyaaradaha ee maamulka Galmudug. sidoo kale Galmudug waxay markaasi eedeymo kala duwan ay u jeedisay maamulka Puntland oo isagu dhaleeceyn hore u jeediyay wasiirka qorsheynta maamulka Galmudug oo dhawaan hadlay waxa uu tilmaamay in markaasi colaad ay horunayso maamulka Puntland oo hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni. waxay markaasi ay ku eedeysteen ama ay ku eedeeyeen in markaasi uu ka dambeeyo dhac markaasi loo geystay gaari hub sida magaalada Laascaanood ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxaana markaasi la sheegay in ciidamada ammaanka maamulka waa markaasi Galmudug ama magaalada Gaalkacyo gacanta ku dhigeen. xiisada u dhaxaysa maamulka Galmudug iyo sidoo kale maamulka Puntland ayaa markaan soo ifbaxaysa iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale ay qaaday talaabooyin waaweyn oo ku aadan iyadoo Saciid Cabdullaahi Deni markaasi ku amartay in ama markaasi cadaysyo kala duwan saaraysa. Saciid Cabdullaahi Deni ciidamo ka badan 2,000 oo askari ayuu wuxuu geeyay wadada xiriirisa magaalada Gaalkacyo ee markaasi xarunta gobolka Mudug iyo sidoo kale magaalada Garowe ee ahna caasimadda gobolka Nugaal. ciidamadii BSF ee sida weyn ula dagaalamay Saciid Cabdullaahi Deni aaga laag ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari u dhowna waxay markaasi ku sugan yihiin magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland maamusho. dhinaca kale Mareykanka ayaa cadaadis saaraya madaxda Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo isagu markaasi si weyn ula dagaalamay waa ururka Daesh oo ka dagaalama Buuraha Almiskaad. Mareykanku waxa uu markaasi ciidamada BSF uu mishaar sii jiray waxay si weyn ula dagaalami jireen kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxda Daesh oo iyagu si weyn uga dagaalama Buuraha Almiskaad ee gobolka Bari waxaana markaasi halkaasi ka dhaxay xiriir u dhaxay labada dhinac. balse muddooyinka u dambeeyay markuu Saciid Cabdullaahi Deni ula dagaalamay ciidamadii BSF ay sida weyn uga dagaalamayay maamulka Puntland kooxda Daeshna kala dagaalamayay Buuraha Almiskaad ee gobolka Bari iyo sidoo kale buurooyinka ku yaala magaalooyinka Puntland ee maamusho ayaa wixii ka dambeeyay waxa uu mishaarka uu ka goostay ciidamada BSF waxaana halkaasi ka baxay wada shaqayntii uu la lahaa Mareykanka Saciid Cabdullaahi Deni.
war qoraal oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee markaasi Soomaaliya ayaa lagu sheegay in cadays markaasi ay saarayso madaxda Soomaalida wafdi ka socda Mareykanka ayaa ku wajahan magaalada Garowe waxaana halkaas la doonayaa in markaasi Saciid Cabdullaahi Dani lagu qanciyo inuu yimaado magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas oo la filayo in kulamada xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dib uga bilowdaan dhinaca kale haddii aynu eegno magaalada caasimadda ee Muqdisho maanta waxaa ka dhacaya ama caawa ka dhacaya shir jaraa'id oo ay qabanayaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo ay markaasi uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha hore ee dalka iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana ka mid ah madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland waa Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Salaam Axmed Midoobe qoraalkan ay markaasi xalay soo saartay safaaradda Mareykanka kadib waxaa markaasi war qoraal oo ka soo baxay madasha samata bixinta ama golaha mustaqbalka lagu yeeray caawa shir jaraa'id ay qaban doonaan waxaana markaasi wararku tilmaamayaan inay sii wadi doonaan cadaadiska ay saarayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku aadan in laga heshiiyo doorashada dalka ka dhacaysa dowladdu iyadu waxay ku dadaalaysaa in doorasho qof iyo cod dalka laga qabto berrito ah 30 Julaay ama Luulyo waxaa Galmudug looga dareeri doonaa doorashada qof iyo codka halkaas waxa ku sugan musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Liibaan Axmed Xasan oo isagu markaas la filayo inuu ka soo baxo maamulka Galmudug Hirshabeellana waxaa la qorsheynayaa bilaha soo aadan ama maalmaha soo aadanba ama toddobaadada soo aadan ay ka dhacdo doorashada qof iyo codka xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaana caawa qabanaya shir jaraa'id uu horkacayo Shariif Sheekh Axmed waxay markaasi eedeymo kala duwan sida caadiga ah u jeedin doonaan madaxda sare ee dalka waxayna ku eedeyn doonaan in markaasi ilaa iyo haatan miiska wada hadalka aan la imaan waxayna markaasi ay dalban doonaan ama beesha caalamka ay ka dalban doonaan in markaasi si degdeg loo xariyo arrimaha doorashooyinka ee ku gudaaman dalka xilli uu dhamaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ku ekaa 4 sano Xasan Sheekh Maxamuud bilooyin dheeriya ayuu xilkan u sii hayaa waxaana markaasi uu sheegay doorasho qof iyo cod ama doorasho dadweyne inuu dalka uu ka qaban doono balse dowladda federaalka ee Soomaaliya ay raadeen wax xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka si weyn ay uga soo horjeedaan kulankan ama markaasi soo aadan oo Mareykanku uu qorsheynayo inuu garwadeyn ka noqdo kadib fishil ku yimid kulankii uu markaasi Turkigu garwadeynta ka ahaa ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa la qorsheynayaa inay yimaadaan madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland waa Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland ay raadeen waa Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Midoobe ayaa iyagu qayb ka noqon doona kulanka la filayo in toddobaadyo soo aadan oo ka dhaco caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo u dhaxeeyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale dhinaca kale waxay ka hadli doonaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka sida caawa markaasi la filayo khilaafka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa waxay ku eedeyn doonaan in colaad ay ka horanayso maamulka Puntland ciidamo fara badan ay halkaas ku daabulayso waxayna tilmaami doonaan in markaasi ciidamadii lagu la dagaalami lahaa kooxda Al-Shabaab ay markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ku daabulayso magaalooyinka Gaalkacyo iyo sidoo kale Waqooyi Bari halkaas oo laga abaabulayo colaad markaasi la galayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu dagaal weyn la gali doono dowladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Dani lama ogo sida uu ku tagi doono Muqdisho sidoo kale Axmed Midoobe ayaan la ogeyn cidda kafaalo qaadi doonta waa markaasi waa cidda kafaalo qaadi doonta amnigiisa balse waxay beesha caalamka oo markaasi Mareykanku ku cadaadi doonaan in madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay tagaan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyagoo ilaalo gaar ah markaasi u diri doono waxaana la filayaa in kulamadan ay ka dhici doonaan xeerada xalane oo markaasi si weyn u degan ama ciidamada ay soo ilaaliyaan oo ah meesha kaliya ee madaxda Soomaalida ay ku kulmaan markii ay xilalku sidaan oo kale u dhacaan ama khilaafyadu sidaan oo kale u cusboodaan hagaag daawade oo amaasantahay halkan hadii aad nala soo gaartay gudahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtan aynu ku eegaynay xiisada Puntland iyo sidoo kale kulamada caawa la filayo ama markaas war-saxaafadeed ka soo bixi doono xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka tan iyo maqalkeena xiga waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo